galmudug waxaa dhawaan ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda hubaysan ee ahlu sunna iyo maamulka galmudug. dagaalkan ujeedkiisu waxa uu ku wajahnaa doorashada heer federaal. sida caadiga ah kooxda ahlu sunna waxay soo laba kaclaysaa markii la joogo xilliyada doorashada midda federaalka iyo midda heer maamul goboleed. dhismihii ugu dambeeyay ee galmudug kooxdu waxay ku jirtay dagaal xildoon ah, wixii loo qoondeeyana waa ku qanci weysay ilaa markii dambe awood loo sheegtay oo madaxdoodii laga musaafiriyay gobolka. hadda waxaa la joogaa xilligii doorashada federaalka. kooxdu waa soo rogaal celisay waxayna raadinaysaa kuraas heer federaal ah. doorashadii 2016 ayay sidaan oo kale dhaqdhaqaaq isugu dayeen. sanadkan kooxdu waxay heshay isbahaysi siyaasadeed. galmudug waxaa taalla 37 kursi oo golaha shacabka ah. 11 kursi waxay taallaa magaalada Gaalkacyo, halka 26 kursi lagu dooran doono magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb. sidoo kale ilaa 8 musharax oo ka soo jeeda maamulkaasi galmudug ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. maadaama qoorqoor loo arko nin ku dhow madaxweynaha doorasho la'aanta ku fadhiya filla Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa kooxda ahlu sunna sanadkan soo dhex galay siyaasiyiin raba in qoorqoor la maquuniyo si kuraasta galmudug taale loola qaybsado ama musharaxii kale ee loo arko inuu qoorqoor dhisi rabo. xubno xildhibaano soo waayey iyo kuwa hadda rajabeel ah ayaa sidoo kale la sheegay inay af iyo adinba ku taageerayeen kooxda ahlu sunna. hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo si weyn u fahamsan in cidda ku soo duushay aanay ahlu sunna ahayn, in ujeedka dagaalku yahay saami qaybsiga kuraasta heer federaal ee taalla galmudug iyo in la rabo in la wiiqo awoodiisa si loola farageliyo dhariga doorashada golaha shacabka, ayaa si weyn ula diriray ahlu sunna iyo siyaasiyiintii ku dhex jirtay intaba. dagaalkan oo ahaa midkii ugu cuslaa ee waayadan ka dhaca deegaanka ayaa loo bixiyey dagaalkii saamidoonka doorashada. qoorqoor waxa uu qaatay halis muuqata oo haddii laga adkaadana keeni kartay in weelka gacanta lala geliyo, haddii uu adkaadana keeni kartay inuu isagu dhinaca uu rabo u dhiga doorashada. hadda qoorqoor ayaa ku adkaaday dagaalkii saami qaybsiga kuraasta golaha shacabka ee taalla galmudug. waxaa loo arkaa inuu dagaalkani awood dheeriya siiyey. qoorqoor hadda waa u fududahay inuu musharaxa uu rabo u boobo kuraasta taalla galmudug. inkastoo aan la aqoonin sida uu rabo inuu hadda wax u dhigo, haddana awoodda dheeriga ee uu ka qaada dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Gurceel ayaa musharaxiin badan oo xildhibaano doon ah ama madaxweyne doon ah waxay ku riday rajabeel. inuu qoorqoor ku adkaaday dagaalkii saami qaybsiga waxay galmudug ku ridi doontaa gacmo kooban. Farmaajo waa ninka hadda ugu rajada fiican musharaxiinta kuraasta looga soo saari karo galmudug. wuxuu qoorqoor geliyey tamar 100% ah si uu ugu adkaado dagaalka saami qaybsiga, waxaana loo badinayaa inuu qoorqoor bixin doono kuraas abaalgud ah. dhowr bilood ka hor xaalku sidaan waa ka duwanaa. waxaa aad u yaraa kuraasta la saadaalinayay in Farmaajo ka soo heli doono galmudug, laakiin labadii asbuuc ee u dambeysay Farmaajo ayaa noqday musharaxa ugu miisaanka culus dhanka kuraasta ka imaanaysa galmudug. qoorqoor waxaa la sheegay inuu gacanta ku hayo liiska musharaxiin madaxweyne oo qayb ka ahaa dagaalkii Gurceel iyo xildhibaan sugayaal lacag u diray kooxda. maadaama uu hadda dagaalkii idlaaday, xisaab siyaasadeedkana loo soo laaban doono, qoorqoorna uu adkaaday, waxaa la eegayaa sida uu u qaabeeyo abaalgudka siyaasadda ama aargoosi uu ku sameeyo xubnihii soo dhex maray ahlu sunna. inkastoo dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug ay xaq u leeyihiin in saamigooda ay si furan uga raadsadaan gobolka, haddana dagaalkii Gurceel wuxuu abuuray aragti xag jir ah oo diidi doonta dadka qaar ama inuu qoorqoor u bareero dakana siyaasadeed isagoo gudaya abaal ama ka aarsanaya kooxihii gadaal ka taagnaa dagaalka. xubnihii dagaalkan abaabulay qaarkood waxay u muuqdaan inay si dadban ugu shaqeeyeen madaxweyne Farmaajo. maxay kula taadiga